السلام عليكم أصحابتا Somali Fit ku xiran waxaa badi dhacda in murqo la dhisto ay dad badan ay ku khasaareen waqti badan oo luntay balse maanta wax badan baan ka caqligeystay aqoonna waan u yeeshay in miisaankaaga aad dhinto oo murqo yeelatid waa hawl culus u baahan dadaal dheeri ah iyo waqti badan inaad geliso waxaa dhacday inaan sameeyay khaladaad badan sababtoo ah waxaan qaatay xilligaas talooyin khaldan sidoo kale dad badan ayagoo fiican wehida fiican caafimaad qaba ayay haddana qaateen dawooyin si ay murqo weyn u yeeshaan caafimaadkoodana waa ay saamaysay balse khibrad aqoon baan helay maanta adna waxaad ka faa'iidaysataa waxna ka barataa khaladaadkaygii aqoontan qaado hadda dib u bilow murqo dhisidaadii helna murqo degdega insha allah okay maanta waxaan ku siin 4 qodob oo caafimaad ahaan cad oo sahlan kuna fududayn inaad murqo waaweyn yeelato la soo ila dhamaadka videoga ka hor intaan bilaabin fadlan subscribe dheh channelka gambaleelkana riix si aad ula socoto muuqaalada dambe oo aan soo gelin doono insha allah 4 qodob oo asaas u ah murqo dhisida hormone asaas bay u tahay wax walba aad qabanayso si aad murqo weyn u yeelato waa inaad hormoonka saxda aad leedahay waa inaad xoojisaa hormoonka sidoo kale isla barbardhigan qof kale waayo uu ka duwan yahay hidda ahaan isku mid ma tihiin hana isku mashquulin sababta tusaale waxaad aragtaa qof maskax badan oo haddana aykiigiisu uu aad u sarreeyo iyo qof kale unugyadiisa murqaha ay aad u badan yihiin murqo weyn leh markuu rabo miisaankiisa dhimaya markuu rabana murqo yeel dhisanaya sababta ah hormoonkiisa ayaa aad u xoog badan haddii uusan xooganayn hormoonkaaga wax walba aad qabanayso ma shaqaynayaan mana yeelanaysid murqo waqti dadaal iyo lacag baa ka hadlamaysa hormoonka oo saxnaada adigoon jimicsi samaynayn cunadaada aysan aad u saxnayn dawo aada qaadanayn taasi waa mid saxda oo dhacday xilliga qaangaarka in murqo weyn ku soo baxaan dhowni iyo xanaaq badan sidoo kale waa sababta dumarka sameeya murqaha jimicsiga ama jimka gala cunooyin fiican sida ragga murqaha dhisa haddana marna ma yeelan karto ragga murqahooda kale sababtoo ah hormoonka saxda ah ma laha 2 jimicsi marka aad rabto in murqaagu weynaado waa inaad ka shaqaysaa murqa waxaad uga shaqaysiin kartaa inaad qaato biro ama jim aad gasho si sax ah aad u jimicsato waxay kor u qaadaysaa hormoonkaaga soo sii deyntiisa hormoonka ayaa dhisaya murqa si aad u hesho sidan waa inaad jimka birahana qaadaa waa inaad jimicsataa 3 ilaa 4 isbuuci ka badan may sidoo kale ugu badnaan 1 saac wax ka yar waa inaad jimka aad ku jirtaa ama aad jimicsataa si xawli ah u shaqee daqiiqado kadib u naso haddana dib u bilow kaliya ma ahan inaad bir qaado waan qaaday dhahdo waa inuu murqu xoog isu galo qaadi weydo waa inaad 10 ilaa 15 halkii set ama ku celinba aad ku celiso jirka qaybtiisa kore iyo qaybta hoosaba waad qaadi kartaa inta aad awoodo waana samayn kartaa balse lama rabo jirkaagu wuxuu qaadi karin inaad ku qasabto ama ku dhigto taasi murqaaga ay dhaawac u geysanaysaa ugu dambeyn dul qaado waqti badan bay qaadan inaad murqo weyn yeelato wax walba intaa kadib waxaa asaas u noqonaya inaad kor u qaado hormoneska dhisa murqaha sida testosterone growth factor hormone insulin iyo inaad yareyso hormoneska ama dheecaanada burburiya ee murqaha sida cortisol adrenal glucagon okay hadda waad ka shaqaysay murqii hormoonkii saxda ahaana uu soo saaray markan waa xilligii uu murq wax cuni lahaa 3 cunno haddii uusan murqaagu wax cunin jimicsigaagu wuxuu sababayaa inuu murqaagu baaba'o tani waa xaqiiqi ugu dhacday bilowgii dad kale oo badanna ay ku dhacdayna waa la kulmay waa ay dhacday inaan bir qaado si aan murqo weyn u yeesho bilowgii anoo wax yar cunaya haddana miisaankayga dhimaya balse isbedel ma arag waqtigaas waxaan helay bas inaan sii yaraaday oo aan sii caatoobay balse ogow uma baahnid cunno aad u badan too much ah waxa u baahan tahay cunno quality leh kaliya kor u qaad calorieska aad maalintii isticmaalayso gaarsii 250 ilaa 500 maalintii
kadib eeg miisaankaaga bil kadib sida uu noqday. haddii uusan miisaankaaga uusan siyaadin aad burnaan waa okay. haddii uu siyaaday ama aad sii burnaatay aad dareentay, yaree calorieska aad maalinta isticmaalayso ama inta energy ama cunada aad isticmaalayso xoogaa aad u yare xoogaa yaree si aad waxa weeye ula socoto jirkaaga isbedeladiisa. waxaa dhacday in dad badani ay aad u cunaan proteinka sida hilibka, kalluunka iyo proteinska la midka ama ay isticmaalaan dawooyin protein ah way khaldan yihiin. tusaale, noloshaadii markii aadka ugu koritaanka badnayd, degdega badnayd, waxa ay ahayd xilliga aad yarayd ee koraysay. sidaas darteed waxa caanaha hooyada qiyaastii hal koob waxaa ku jirtay 2.5 gram oo protein ah la mid ah. inta kale waxay ahaayeen carbohydrate iyo fat ama glucose iyo dux. sidaas darteed waxaad u baahan tahay 1 gram oo protein ah per pound body weight. haddii aad tahay 70 kg ama 150 lbs waxaad u baahan tahay 150 gram oo protein ah inaad isticmaasho maalmaha aad galayso gymta aad sameynayso. usbuuca inta beri aad ka sameynayso inaad isticmaasho. sidoo kale dad badan ayagoo khalaadka aad u isticmaala dawooyinka steroidka waana khalad caafimaad ahaan dhib bay u geysanaysaa. sidoo kale cunada waa inay leedahay fat aan badnayn. waa muhiim cunada fatka fiican in laga helo. sida waxa laga helaa sida saliidda, looska iyo avocadada. carbohydrate isticmaal, iska ilaali inaad sokorta caadiga ah cunto. carbohydrate waxa laga helaa cunooyinka ay ka mid tahay bariiska, baastada iyo cunooyinka caadiga ah cuno. qudaarta isticmaal, hana iska badin. ka fogow sokorta caadiga inaad caadi cunto. taasi waxay kuu keenaysaa inaad burnaato, waana dhib, mana aadan rabin inaad burnaato. waxaad u baahanayd inaad murqo dhisato. 4 nasasho. hadda waad ka shaqaysisay muruqii, waana siisay wuxuu cuno. xilligan waxa u dhiman waa xilliga uu nasan lahaa. sida uu ilmaha yar ugu baahan yahay inuu nasto xilliga uu aadka u koriyo ayaad adna u baahan tahay inaad nasto. si fiican oo u seexato waxaad helaysaa sida aragto ama waaweyn. waxaad u baahan tahay ugu badnaan 8 ilaa 9 saacadood inaad maalintii aad ka seexato. habeenkii fiidkii seexo 10 PM, subaxiina xilliga caadiga kac aroortii. sidoo kale ha aadin kubad sports maalin walba. habeenkii ha wareegin waqti badan. taasi waxay dilaysaa resourceskaagii kaydsanaa kaasoo loogu baahan yahay in muruqa lagu dhiso. nasashadu waxay kor u qaadaa hormoneska wax dhisa murqaha dhisa, waxayna yaraysaa hormoneska burburiya murqaha. jirkaagu wuxuu leeyahay hormones fara badan oo shaqooyin kala duwan qabta. sidaas darteed hormoonka aad u baahan tahay inuu ku dhiso murqaha waa testosterone controls muscle size. waa ay jiraan hormones peptides oo murqaha ku shaqo leh, balse ma aha kuwa aan controlno. waxay ku xiran yihiin genetically ama hidda. waxaa la dhahaa hormoonka ragga magaciisa labaad, waana ka kala saara rag iyo dumar awood ahaan quantity. waana sababta aysan gabadhu sayska muruqa ninka marnaba aysan u yeelan karin ilaa ay qaadato dawooyin steroid ah. male testosterone ama hormoonka ragga waa u yaraada mar walba ay da-du sii weynaato. markaad 80 jirtid ma tihid sida 20 jirkaaga aad u xooga badnayd, u adadkayd, u dhiigga badnayd, u dareenka fiicnayd. sababta hormoonku waa u yaraaday. taasina waa mid caadi ah, ragga dhan ku dhacda, xaalad caadi ah weeye. sidaas darteed marka hormoonkaaga xilliga uu xoog badan yahay waa xilliga 20 jirkaaga ilaa 30 jirkaaga. xilligaas xilliga ugu fiican murqaha la dhisan karo. waxaan rajeeyay inaad wax badan videogan ka faa'iiday. haddii aad ka hesho like sar videoga, share u dheh asxaabta. haddii wax badan ka faa'iiday, subscribe dheh. hadda wixii su'aal aad qabanto commentiga noo reeb. aad baad u mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.